بس أنا دين شيء جيا دكتور جعفر إدريس شيخان قبوبي السوداني قا إلى عاف ماديو نسقاش كردافو علماء دواوين المسلمين تكمدا فيلسوفنا أي وحو يري وكو الرمية دعاء الدهصون يعني عيدنا أوغين أولي دعاء الدهصون هلا عاوية مركا لمن نبوكو الرمي ومرايكن كتشوغا بدو حلوة تكسيلة تاكسيغا wuxuu dadka kaga soo qaadaa airportka magaaladu keena taksigiisa marka cidi soo fuusho ayuu quraan cid macaan u saaraa maraykanka iyo dadkaas waa dad hadal badan oo warka iskala ka bilaabaya European-ka مثلا Scandinavian-ka kale guriga kugu xiga weliga kula hadlimaya ka ku jira wadada aamusan aan waxba ku darsanin laakiin qoladan af Ingiriisiga ku hadasha waa dad aad u furfuran oo dadka iskala qabsada markuu quraan cid macaan saara bay yiraahdaan heestani maxay ahayd isagu su'aasha uu muu rabay inuu la weydiiyo waa cod macaan yeelin ninkan heestu qaadayo markaas wuxuu bilaabay inuu yiraahdo it's the last revelation from God waa waxyigii ugu dambeeyay samada ka yimaada halkaas uu ka bilowdaa marka warkiisa 58 qof buu kursiga dambe iyagoo saarana shahaada u qabta 58 qof 6 bilood gudahoodna weeyaan maaha waqti badan 6 bilood gudahood buu 58 qof oo kursiga dambe ee taksiga saaran waa shahaada u laqibay ka labaad uu ka warramay waxa weeyaan nin soo islaamay oo aan aqoon diineed oo badan lahayn muslimuun iimaanku galay oo iimaanku ka dhab yahay niman carbeed oo muslimiin oo masaajidda ku tukadaya waryaade war dadka naarta ku socdaane kaalayo raaca dadka ana soo qabanaya idinku kaan idin keena wuxuu sheega maalinba laba dadka masaajidka jooga af carabigana yaqaan ayuu ka xeeyaa isagu faatixadu dirqa ku akhrinaya wadada dadka maraya ayuu isartaaga ma rabtaa inaad islaamka wax ka ogaato dee waa bini aadama wax walba oo ku dhaca qaar waxay dhahaan war naga banee iska daaya buu yidhaha isagaa diiday ka yidhaahda islaamku muxuu yahay gacantuu qabtaa wuxuu yidhaha warkaan wuxuu sii sheega dabeetana isagu waddadu ku noqdaa isagu dadkaa waddada maraya ee laga khajilay islaamku qofkaasaad iskala hadli ayuu indha cadda isugu tagaa unoo yidhaahdaa war diinta wax ma ka rabtaa inaad ka ogaato kii yidhaahdaa muxuu yahay gacantuu qabtaayo nin carbeed halkan taagan buu geeyaa wuxuu yidhaahdaa diinta u sharax waxaan uga dan leeyahay qofka bini aadamkii hadduu ku talagalo inuu wax qabto waxbuu qaban karaa laakiin aan run isu sheegnay ma jiraan niyadaa waddankan cid ku timi gacanta taag nin markuu waddanka imanaya islahaa dadka aad islaamisid mise waxaynu u badannay nin islahaa cilmi ka qaado jeebabkooda baadho in lacaga ka sii qaado oo ka baacmishtare wax kale inuu soconay war haddaba tii kalena si ay idinku asaxdo oo iyada lafteeda aan aakhire laydiin weydiinin tanna ku dara dadkan adigu xilku kuma saaro qofku inuu islaamo iyo inaanu islaamin ilaahay baa taa ku shaqo leh adigu inaad u sheegtaa ku saaran hayse odhan waa lagu diidi iyo waa kan iyo falsafadna uma baahna iyo wax waaweyn oo aad ka warranto uma baahna waar ilaahay cirkan iyo dhulkan baa abuuray baa rasuul soo diray rumee intaasoo adiga kaaga baahan tahay philosophy iyo wax kaloo waaweyn dadku waxay sidaahdaan talo dadku markuu islaamay maxaa loo sheegaa waxa loo sheegaa war laa ilaaha illa allah bas wax kaloo badan uma baahna ciddii aqbasha ahlan wa sahlan gee meelaha islaamka lagu barayo ciddii ku diidda xoolade kumaad lahayn iska dhaaf hadduu ku diido khalaas iska dhaaf adiguna markaa inaad badbaadaa bay u badantay oo qof soo islaamo xaqa haleelay hadduu kuu duceeyo oo uu garto ninkii naarta ka badbaadiyay inay tahay ducadiisa in alla ku aqbalaa baaba laga yaaba oo aad kaa ducadiisoo saadiqa ku badbaado